maamulkiisu way dadaalayaan laakiin waxaa jirta in sanadahan u dambeeyey imtixaankii noqday mid qish iyo musuqmaasuq taana ay sabab u tahay dugsiyada barayfatka ah oo dadaasi inay heshiiyaan oo xoogaa laaluushii lacag la kala qaato sidaana loo fududeeyo imtixaanaadkii gaar ahaan sanadkan u dambeeyey wax badan baa arrintaa على كثير من عباده المؤمنين إلهي بما هذله هذي أنا يركا إرادة أجنده إن كل فرد قال سديتناد جارهان أرمها برشدة قيبت وحبر الشدة مدن يال وحبر الشدة جودهان وفرها هرمر كدلك دولتها هرمري وحيكون هرمري وأقون يعلم يوحبر الشدة dalalka dib u dhacayna waxay dib ugu dhaceen aqoon la'aan iyo cilmi la'aan weyn si aynu taa u gaadhno baahideennana u ogaano waxaynu u baahannahay in la sameeyo cilmi baadhis qoto dheer oo cilmi baadhis qaran la sameeyo wasaaradda hormood ka noqoto intaa markaan ka gudbo dhibaatooyinkaan isleeyahay waxbarashadeenna way hortaagan yihiin maanta waxaa ka mida kow dugsi yaraan iskuulaadka oo ku yar dadka magaalooyinkii way fideen way ballaadheen xaafado cusub baa bilaabmay magaalo kastaba gaar ahaan caasimadda xaafadaha cusub looma diyaarinin wax dugsi ah oo dadka degaya ay dhigtaan dowladaha hoosaana ka mas-uula iyagoo dantii guud ee loo diyaarin lahaa si gaara iyagoo isticmaalay waxay ku qasabtay markaa bulshada xaafadaha cusub degaysa ciddii awoodi karaysaa inay dee dugsi bas ah raacdo ciddii kalena inay aqalkooda isla joogto taasi waa dhibaato haysata hadday tahay waxbarashada babliga iyo hadday tahay waxbarashada brifatka aba sababtoo kuwa brifatka laftoodu ma iibsan karaan dhulka qiimihiisa maanta oo ma fidin karaan dugsiyada ay lacagta ku qaadaan waa caqabad hortaagan dadkii da'yarta ahaa ee waxbaran lahaa dugsiyaraantaasi laba manhajka maanta ay wax ku bartaan oo aan ahayn mid ka turjumaya waxbarashada iyo baahida dalkeenna iyo deegaankeenna oo ay u baahan yihiin ardaydu in wax laga bedelo oo manhajka dib loo eego waxaa kaloo ku darayaa imtixaanaadka xafiiska imtixaanaadka iyo guddoomiyihiisa iyo maamulkiisu way dadaalayaan laakiin waxaa jirta in sanadahan u dambeeyey imtixaankii noqday mid qish iyo musuqmaasuq taana ay sabab u tahay dugsiyada barayfatka ah oo ku tartamaya maarkiska iyo darajo marnabana aan ogolayn in hal arday ka dhaco maamul waliba iskuulkiisa in qof ka dhaco ama waxa barta ama yaanu baranine subcadku waxay ku raadinayaan inay yidhaahdaan iskuulkaasi waa ka u sarreeya imtixaanka iyo waa ka u maxayeeya waxaana sababtay inay heshiiyaan kormeerayaasha imtixaanaadka sida ee gobollada iyo degmooyinka iyo iskuullada loo diro iyo maamulada iskuulladaasi inay heshiiyaan oo xoogaa laaluushii lacag la kala qaato sidaana loo fududeeyo imtixaanaadkii gaar ahaan sanadkan u dambeeyey wax badan baa arrintaa ka soo ifbaxay waxay u baahan tahay arrintaasina wax ka qabasho afraad baahida macallimiinta halkan ajadeenna waxaa ku jira macallimiinta ajnabiga baahi baa keentay kuwa ajnabiga dalku wuxuu u baahan yahay macallimiin tayo leh oo aqoon leh oo in kor loo qaado macallimiin yaraan iyo tayo yaraan baa taagan gaar ahaan dugsiyada babliga loo leeyahay ee dadweynuhu ay dhigtaan ama danyartu dhigato macallimiinta dhigtaa way liidataa kormeerkooduna wuu liitaa taasina waa arrin caqabad ku ah waxaa kaloo ku jiro arrimaha farsamada gacanta caqabadda hortaagan waxaa ka koowa ardayda reer Somaliland ee dugsiyada dhexe ka baxaysa oon innaba xiisaynaynin waxbarashada farsamada gacanta xiisaynaya inay xafiis fadhiistaan dugsi sare ka baxaan jaamacad galaan
laakiin inay gacantooda ku shaqo tagaan aan xiisaynaynin iyo dhiirigelin la'aan xukuumadda iyo wasaaradda waxbarashadu aanay dhiirigelinaynin arrimaha farsamada gacanta iyagoo oo dugsiyada kor loo qaaday oo ay yar yihiin tiradooduba waxaan isleeyahay haddaba ilahaas marka la isugu daro waxay u baahan tahay kow in siyaasadda waxbarashada qaranka laga dhigo mid ka turjumaysa baahida dalka ka jirta in kor loo qaado tayada maamul ee dhammaan maamulada iyo laamaha waxbarashada in imtixaanka shahaadiga uu noqdo mid aad loo ilaaliyey si ay u kala baxaan ardayga soo dadaalay iyo ardaygii iska seexday shahaadada la qaadanayaana u noqoto mid lagu kalsoon yahay aad waxaan u ogahay xafiiska imtixaanaadku inuu ilaaliyo shahaadooyinka oo aanay shahaadooyinku si dhib yar u bixin laakiin waa inay noqdaan shahaado lagu kalsoon yahay oo la ilaaliyey oo ardayga soo qaatay iyo wuxuu sitaa inay isnoqdaan in dib u eegis lagu sameeyo manhajka waxbarashada in la soo saaro macallimiin tayo leh mushaarkoodana kor loo qaado si ay iyaga laftoodu dee kalsooni wax ugu dhigaan in la kordhiyo dhismayaal iyo dugsiyaal daafaha magaalada daafaha miyiga iyo dhammaan tuulayaasha meel kasta si ay uga maarmaan ardayda danyartii inay bas iyo baabuur u baahdaan taasina waxay keenaysaa in waxbarashadu fido in la dhiirigeliyo oo la wacyigeliyo barashada farsamada gacanta in waxbarashada dalka lagu soo kordhiyo agabka iyo aqoonta casriga ah aqoontii way isbedeshay ardaygii wax qorayay maaha aqoontii casri bay noqotay in intii ay dowladdeedu awoodi karto in lagu soo kordhiyo aqoonta casriga ah in kor loo qaado waxbarashada diiniga ah lana dhiirigeliyo barashada qur-aanka iyo dhammaan laamaha kale ee shareecada islaamka aanay ahaanin oo keliya in qur-aanka akhriskiisa la baro iyo ku tartanka maalinta tartanka uun aan ardayda looga dhigin ee ay noqoto ardayga sababta loo baraya ujeeddo cad oo ah inuu qofkani ku dhaqmo diinta islaamka iyo qur-aanka la barayaba inuu ku dhaqankiisa sameeyo ugu dambeyn waxaan leeyahay gebagabadii waxaynu u baahannahay aragti qaran oo ka turjumaysa baahideenna macallin tayo leh manhaj waxtar leh iyo kaabayaasha casriga ah ee waxbarasho bilaahi towfiiq wasalaamu